madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa galabta safar shaqo ugu kicitimay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigaasi uu hogaaminaya ee safarka shaqo ku tagaya wadankaasi ay kala hadli doonaan mas'uuliyiinta ugu sarsareysa wadankaasi dardargelinta cilaaqaadka cudoon u dhaxaya wadamada Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta iyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa heshiisyadii taariikhiga ah ay kala saxeedeen dalka Imaaraadka Carabta iyo waliba Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigu hogaaminaya uu safarkoodani ka dambeeyay martiqaad rasmi ah oo madaxweynaha Soomaaliland uu ka helay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa wadankaasi wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland mudane Saleebaan Cali Koore oo warbaahinta kula hadlay madaarka ayaa ka warramay ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga hogaaminaya ay ku tagayaan dalka Imaaraadka Carabta isagoo wasiirka biyaha ee Soomaaliland arinta ka hadlayna waxa uu yiri waxa galabta garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport aynu joogno ka ambabaxaya wafdi heer qaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay u socdaan dalka Imaaraadka Carabta oo ay si rasmi ah u casumay Crown Prince-ka ama ninka dhaxalka boqortooyada UAE leh Sheikh Mohammed Sheikh Said Al Nahyan oo aanu ka helay madaxweynuhu casumad official ah waxa kaloo nala socda sida ay ku heshiiyeen aad maqlayseen in xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynuhu in ay isla garteen inuu isna raaco gudoomiyaha mucaaradka xisbiga Uxud Faysal Cali Waraabe halkaas oo lagaga wada hadli doono arrimo khuseeya labada dal iyo horumarinta labada dal iyo danaha guud ee dalka iyo tamandaqadaba waxaanuna aad iyo aad ugu faraxsanahay in aanu runtii dalahaan aanu maanta halka marayno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu wafdiga awoodda leh ee lagu casumo deegaanka annagoo ka talin doona ama ka soo wada hadli doona danaha Soomaaliland iyadoo qaybaheeda kala duwan noocay doontaba ha noqotee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay annagoo war fiican iyo talo fiican iyo amuur fiican wadana inaanu idinkula soo noqono waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliland tan iyo waqtigii talada wadanka loo dhaariyay uu safar shaqo ku tago isagoo madaxweynaha wadanka isu taga Imaaraadka Carabta waxaana ku helinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda biyaha ciyaaraha qorsheynta xiriirka golayaasha iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uxud Engineer Faysal Cali Waraabe أحمد سكي داير حسن يا عبد الله علي صودي warbaahinta qaranka Soomaaliland gagada diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa